Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan soo booqday anigoo ah TV Wadani, anigoo u shaqeynaya dadka Islaamka oo dhibaateysan iyo dhanka masaajidka. Waxaan ka wareysanayaa imaamka masaajidka insha Allahu tacaala. Insha Allah imaamkaan ka wareysanayaa masaajidka dhibaatada iyo waxyaalaha kuli asaan oo soo jeedinayaa. Awalan anigoo ka socdo TV Wadani. معلم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. waxaan idin leenahay khayrka Allah idin kaalmeeyo. marka waxaan halkaan idin soo booqanay TV Wadani anigoo imaamka masaajidka imaamkiisa ah. marka waxaan idin leenahay masaajidkii waad u diidaan waan idin soo diri doonaan. masaajidku wuxuu u baahan yahay gabil iyo asiga dhismo hoos bulkeed xataa laga geliyo. waad arka fiidiyoisi waad arka doontiin. masaajidka wuxuu u baahan yahay caawinaad weyn in laga qabto. maasha Allah gabar Soomaaliyeed ah ayaa waxweyn nagu qabatay. meeshii qulateenkii waa nagu dhistay, kutub badan ayaa nagu keentay. iidan waxaan leenahay jazaakallahu khayral jazaa ayaan leenahay. adinkan marka waxaan leenahay masaajidka inaad gacan weyn aad ka geysataan ayaan idin soo booqanay. masaajidka waa kan maxaa idhaahday waxaa ka jirto shumac la-aan gabal la-aan ayaa ka jirto. insha Allahu tacaala waa kan masaajidka xaaladiisa dhibaatadiisa shumacaan ayay ku dugtaan. masaajidka dhanka jajabsan waa kan muuqaaladiisa anagoo ka socdo TV Wadani. waa ujeediin muuqaalada masaajidka meesha jajaban kulli waa ujeediin. masaajidka dari waaye, beedka ilaahay waaye. ninkii wax ku baxsanaayo sadaqa jaari waaye, sadaqa aan dhammaanaynin waaye. waa kan bolol waaye. hadda maanta haddii oo birito roob asdo qalqayl waaye abnaa roobka u raacaa. intii nin walba ninkii awoodiisa ku darsanaya insha Allahu tacaala. waxaan usoo jeedinayaa imaamka oo masaajidka mar labaad kusoo noqona soo duceynayo hadduu ilaahay karaal noqdo. asigana dugsi uu leeyahay, dugsigiisana mar ayaan soo duubi doonaa hadduu ilaahay ka raal noqdo. anagoo ka socdo TV Wadani insha Allahu tacaala. macalinka ayaan u dhiibayaa hasaa noo soo jeedinaa tafsiirka. insha Allahu tacaala mar labaad ayaan kusoo laabtay. sadaqada sideedu buu ciyaar ma aha. wixii aad baxsato adigoo adduunka jooga si dhaqs ahaan adoo adduunka jooga wixii aad helaysaa aakhiradina way ka horeeyaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala arrintaas markuu ka turjumayo wuxuu yidhi wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifuh wa huwa khayru raasiqiin. wixii aad baxsataan oo shay ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa soo bedelayo. meel kale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah. wixii nafsadiina aad u baxsataan ilaahay agtiisa ayaad ka helaysaan. sadaqada sideedaba ciyaar ma aha. sadaqada markii la fiiriyo fadaaisheedii wax hal istaag ama hal fadhi lagu soo koobi karaayo ma aha. sadaqada markaan ku iraahdo maal aad ku tashi karto oo aad dhihi karto xaqiiqatan maalkan aniga iska leh waa maalkeygii aad dhihi karto wixii aad baxsatay waaye. maal akoon adduun wax ma taraayo. akoonkaas adduun waxaa laga maarmaan ah inay ku timaado qalqal ama nusqaan inuu ku yimaado ama inuu burburo shirkadii wixii isku xirneed inay dhibaat kale ay ku timaado ayaa laga maarmaan ah, ayaa iska dhici karto. laakiin koonka ilaahay alle subxaanahu wa tacaala marna nusqaan iyo jug iyo burburaa iyo halaag ku dhici maayo. mar rasuulullaahi Muxamed asigoo la hadlayo nin saxaabiye ah markaasuu wuxuu yidhi maaluka maa qadamta. maalkaada aad ku tashi karto oo aad dhihi karto war maala meel iga yaalo xaqiiqatan waxba meel ii yaalo aad dhihi karto wuxuu yidhi waa wixii aad horumarsatay waaye. sadaqada sideedu waxay ka mid tahay waxyaalaha maalka kubciyo, maalka ay kordhisaa mooyaane ma nusqaamiso. meel xadiis rasuul wuxuu ku yidhi maa naqasad sadaqatu min maalin. sadaqo ma nusqaamiso, maal xaggii ma nusqaamiso, inay sii kubcasa maahane. sadaqada fadaaisheedii waxaa ka mid ah kuleelka ka jiro qabriga waa la yaqaanaa. qabriga lowmeed kama baxo, imaa xufratu min xufari naar ama imaa rawdatu min riyaadi iljanna. waxuu ka mid tahay sadaqada waxay ka mid tahay waxyaalaha demiya maxaa idhaahdaa qabriga kuleelka waxyaalaha lala kulmo. xadiis rasuul wuxuu ku yidhi
sadaqada waxay demisaa ahalkeedii waxay ka demisaa xara alqabuur qubuuraha kuleelkoodii ay ka demisaa weliba waxaa kaloo rasuulku sheegay ninka mu'minka ah wuxuu harsadaa qiyaamada maalinteeda fii dilli sadaqatihi sadaqadiisa ee heeskeedii ayuu harsadaa saasuu rasuulka yiri marka haddana waxaa kalaa ka mid ah fadaaisheedii waxaa ka mid ah sadaqada inay demiso sadaqada siri inay demiso qadab araxmaan allah raxmaanka caridiisii marka sadaqada fadaaisheedii wax aan kusoo koobi karno istaago ama fadhigo ma aha marka adinkan waxaa idin leenahay inaad dadaal weyn bixisaan waxaan idin leenahay jazaakum allahu khayra aljazaa fii xayaatikum wa bacda mamaatikum wajcal jannata maswaakum marka sideedaba waxyaalaha lisfaray waxaa ka mid ah si toosaa laisku faray in lagu degdego kheyraadka lagu degdego kheyraadka u degdegitaankasi waxaa ka dambeeyo jan ayaa ka dambeyso waatan ilaahay uu yidhi wasaaricuu ilaa makfiratin min rabbikum wa jannatin carduhaa asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin meel ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku yidhi saabiquu ilaa makfiratin min rabbikum marka in lagu tartamo oo lagu ordo lagu degdego ayaa lisfaray kheyraadka degdegitaankaas waxaa ka dambeyso janno ayaa ka dambeyso jannadana waxaa lagu diyaariyey dadka alla ka cabsi badan oo kheyraadka ku dadaalo uciddat lilmuttaqiina waatan ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay meel ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku yidhi in lagu kheyraadka la sameeyo meelaha wanaagga ku jiro lagu ordo oo kheyraadka lagu sameeyo iyadina waxaa ka dhalanayso xaqiiqatan liibaan iyo guul weyn ayaad ku gaaraysiin fi dunya waalaakhira waatan ilaahay uu leeyahayo wafcalu lkhayra lacalakum tuflixuuna kheyrka sameeya waxaad xaqiiq ku tihiin oad mudintihiin inaad guul gaaraysaan marka warkayga halkaas ayaan kusoo afjarahayaa waxaan idin leenahay adinkane culeyska allaha idin qaado anigana waxaan u baahanahay allah nagu sakhiro اللهم يسر أمرنا كله وفرج همنا كله واكشف كربنا كله واشف ضرنا كله واجبر كسرنا كله وعلم جهلنا كله اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم يسر كل العسير اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم alxamdulilaahi rabbilcaalamiin anagoo ka booqday t v wadani mu-adinka masaa'idka isagana docyar aan ugu soo jeedina insha allahu anaka masaajidka tarjumeyno imaanku yaadka ku jira imaanku ayuu ahaa nin mu-adinka waaye intaasana joognaa mushaare wax kuma qaadan liwaash ilaahay ayaa joognaa waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaaho wax ilaahay niisoo dhiyo masaajidkaasi inaad dhagax ka dhigtiin aad noo dhistaan aad noo nadiifisay aad noo qurxisin adankan qabriina ilaahayna idin uu qurxiyo aafa allahna siiyo ilaahay caafimaad allahna siiyo cudurkana siwaanina ilaahay naga qabto tawfiiqna ilaahna waafaji maalkii ilaahay adduunya aakhirtaamina ilaahayna siiyo anukana nisu kaalmaysin saas ayaa idinka rajaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi